waxaan leenahay halkan beelihii cuqaashii habar yoonis dhulbahante warsangeli habar shicilo degmada Cerigaabo iyo gobolka oo dhan wixii oo dhami way fadhiyaan oo way joogaan cashadii hore waxaan haddaan hadalkan yar ku raago salaadiin baa cashadii hore naga qaaday hadalka ka timi galbeed laakiinse maanta cuqaashii Cerigaabood baa maanta nasiib u yeelato way haddaysa way nagu yar yihiin salaadiintu maanta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan beelaha hawshan sameeyay oo xafladan sameeyay waa soo dhaweynayaa waa u mahadnaqayaa suldaanka Sharmaarke Maxamed Cali Cabdi Cali isna waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa qolyaha kale ee beelaha ah ee madaxdoodii halka fadhido hartile dhammaan habar yoonis leh oo reer walba joogo habar jeclo oo Barre Cabdiraxmaan iyo Abdiraxmiine waa wada salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib hadal ma joogo hadeero dee waxba inagu taagan qadadii awal waxaan islahaa hadal ma jiro waa la qadaynayaa dee mar haddaynu hadalkii furay soo yaryarayno baan anna ku talin lahaa inkastoo la yidhi haddeerna waxaan leeyahay waydu soo dhawaynaynaa salaan iyo kalgacal baan idinku soo dhawaynaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi raxmaani raxiim beesha ay hogaaminayaan suldaan Ismaaciil iyo suldaan Maxamed iyo caaqil xasanba aad baan ugu mahad celinaa runtii waxaan kaloo halkan farxad ii ah inaan maanta madaltan quduxda badan kula kulmay mar labaad suldaan Sharmaake suldaan Maxamed Cabdi Cali isagana waxa weeyaan aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha reer Dayaxa oo iyaguna hawshan quruxda badan qayb ka qaatay runtii way mudnayd Dayaxa in laga sheekeeyo waqti badan laakiin waqtiga taariikhda ay leedahay laakiin waqtiga iyo aminta aynu joogno ayaan inoo saamaxayn inaynu wax badan iska niraahno waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u salaamantiin dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والمهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحان هل كان كسلام يا سلطانك aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa suldaanka waxaan kaloo salaamayaa ismada dhammaan halka inta fadhida uqaasha guurtida saxaafadda reer Dayaxana gaar baan u salaamayaa dhammaan waxaan leenahay horta suldaan ku soo dhawow waa magaaladaadii waa la sheegay oo horaa loo sheegay waa tii aad ka dhalatay reer Dayaxana aad baa ugu mahadsantihiin soo dhaweyntan aad samayseen gaar ahaan degmada Ceergaabo dhammaan waa ku soo dhaweynaysaa insha Allah tacaala waan idin salaamayaa dhammaantiin suldaankana gaar baan u salaamayaa assalaamu calaykum madashan aadka iyo aadka u quruxda badan maanta ay dhigeen qolada reer Abdiraxiin aad iyo aad baanu ilaahay baa mahadle ilaahay ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada la isugu yimi suldaankana lagu soo dhaweynayay iyo waftidiisa annana aanu la ku macsuumay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle marka xigtana suldaanku markii horena gar adag baanu ku caleema saaray markana waa markii labaad oo gobolkii Sanaag aad iyo aad baan suldaan adigii waftidaadaba kugu soo dhaweynaynaa markii horena iyadoo weliba la sheegay darajo aad u sarreysa oo dadku aan wada aqoon laakiin waxaan u qaatay wixii abar jecla ahoo gobolka Sanaaga buu yahay taasna waxa weeyaan kuwa kale lama dhaliilayna waa kulli waa qayba la kala leeyahay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa sidaas aan u qaadanaynaa annana waa u baahnayn wixii naga gala meel aan ugu tagno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
suldaanka boqorada isimada kale taliyayaasha gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiye ku-xigeenka degmada madaxda sharafta leh oo kale oo meesha ka soo qayb gashay dhammaanteen waan salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waana xilli dambe hadda ragga lagagama hadlayo mar hadday labada gaadho qaar caanahooda iska sitaa waa jiraan laakiin odaygii hore caaqilkii waa taliyo wuxuu yidhi hadalka hala yareeyo mar haddaynaa qadayn taasi waa dee jirtaa oo kolley cudurdaarkay leedahay hadalkana haddii laysu dhiibo soo gaabidu waa adag tahay waxaan salaamayaa suldaanka cusub oo la caleema saaray oo wuxuu yidhi ismaaciil cali suul mar haddaanu fure helay hadba kii maantaa la caleema saarayaa dadka ugu sarreeya gobolka oo dhan baa loo caleema saaray waxaan leenahay gobolka sanaa ku soo dhowow annagu maantii horeeto caleema saarkii hore ma joogin hadda barre cabdiraxmaan baa la yidhi maqan abdiraxmaanku dee inuu ku jiro iyo in kale waxay doonto ha ahaatee anigoo ku hadlayo beesha warsangeli afkeedii waanu ku doorannay waana ku soo dhowaynaynaa waxaanu kugu soo dhowaynaynaa degmada ceerigaabo iyo beelaha soomaaliyeed oo wada dega baanu kugu soo dhowaynaynaa iyo gobolkaagii waanu kugu soo dhowaynaynaa halkanna waxa la yidhaha dayaxa dee intii aynu somalilandta sheeganay unbaad ka sheekayseene waa ka weyn tahay dee somalilandta dayaxi waa jaamacaddii ummadda soomaaliyeed bay ahaan jirtay innagunba hadda la dudnay oo nidhi waa go'nay soomaalidii hore wax samaysana in la xuso xaq bay u leedahay de geedkanna waa kii cilmiga waa kii waxbarashada isagana waxa weeye cidda joogta oo ilaalisa iyo cidda wax ku casintayba aad baan u hambalyaynaynaa waana soo dhow